qoladaa walo waa nala caayay iyo waxbaa nala ku yidhi iyo kursigaana le waxaa ninkuna waa la caayayna ceeb baa kaa raacda annaguba iyadoo sacad muuse nagu miisay oo ilaa dahabshiil la gaadhay yaan lacag la dhigan baanu iyagii dhisnay kale meel baa layga haystaayoo sanduuq lama dhigi karana waa nin iska hadlay doorashadu way dhacaysaas goob kasta oo habar jecla degan tahayna sanduuq oo la dhigay aad bad mahadsan tahay siyaasi Mustafa adigu waxaad ka soo jeedaa deegaan ballaaran oo muddooyinkii u dambeeyay siyaasadda Soomaaliland saameyn ku lahaa waxaana kala hogaaminaysaan xisbiga wadani iyo kulmiye iyo kaah siyaasaddiinu guud halkee isugu biyeeshoysan horta kursiga madaxweynaha waxa iska leh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi cirra iska leh isagoo siyaasiyiinta gaar ula macaamilaya inuu reer dhan la yiraahdo urur baa sida ama koox baa sida ama nin baa sida waa arrinkan ka hadlaya ma qaadi karo nin reer sidaana ma jiro nin reer qaadi karaana ma jiro isaga maanta ka ahda aad soo qaaday haddaan iminka teedaba ku sheego ururka ka maanta wax la gudbo inuu isagu weelkiisa ka shaqeeyo ururka iyo la soo saara inuu qodobkaa ka shaqeeyo horta fariin aan ka sido beelaha weynta habar jeclo oo hambalyo ah oo hambalyeenaynaa waxaan ugu hambalyeenaynaa waxa weeye runtii culays siyaasiya oo beeshayada ku soo wajahnaa ayuu runtii si wanaagsan nooga jeeyey marka waa u mahadnaqaynaayo halkii maanta ay annaga iyo dad kale doorashaduna dhex mari lahayd oo halkaa buuq iyo xasarad iyo wax nooga iman lahaayeen horta culayskaa wuu naga qaaday waayo kursiga shalay baanu ka degno xaraaradina nooma haynin xiisena umaanaan qabin waa hawl na dhaaftay bay ahayd dhibtuu leeyahayna waanu soo marnayoo waanu naqaanaa markaa taa waan ugu hambalyeynaynaa waanan ku sagootayeynaa waxaanu soo dhowow mar labaad iyo adigiyoo dadka u baahan maalintii hore dee shaash baad lahayd oo hareeraha lagu hayey weliba ciddii hareeraha ku haysay beelweynta habar jeclay ahayd ee dhinac walba kaa taagnayd madaxweynihii Somaliland soo maray ee ugu fududaay doorasho intuu galo ku guulaystaana adigu aha fursad baad heshay fursaddaadina waad dhammaysatay imankana waa adigiyoo tartamaya iyo mar labaad iyo bulshadii reer Somaliland guushaad sheegatayna halkaasay ka soo bixi doontaa taa intaasaan ka odhanayaa reer tolkay sacad muuse kelmad la xidha doorashada ayaan iyagana ku odhanayaayo waa ragaannu taxaaluf lahayn wax badan inaga dhexeeyeen siyaasaddana aanu shuraako ku ahayn shuraakadaa aanu siyaasadda ku ahaynna ku kala tegi mayno siglan baanu diraynaa iyana weyna sugayana way ogyihiin siglankaanu dirno ee habar jecla dirto ayay eeganayaana siglankaanu diraynaana wuu soo socdaa waanu imanayaa ku kala hadhi mayno dalkan waynu badbaadinaynaa ciddaynu maanta doonayna inaynu koofiyadda saarno ee taajka u xidhnaana waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo inaan khaldamin markii hore waynu dee wada soconnay laakiin maanta inagaa gaar ka wada qabanayno hareeraynu cirro ka istaagaynaa yaan fursaddu ina dhaafin siglankana habar jecloona kaambeynka dhinaceeday ka gelaysaa codun bixin maysa laakiin waanu shaqaynaynaa gaashaanbuurtii hore oo dhammi way shaqaynaysaa hadday boorama tahay iyo hadday hargeysa tahay iyo hadday burcaba tahay gaashaanbuurta bal bulshada waa jeegaanta wixii la odhan jiray baan uga jeedaayo dee wax la doonaya inay dee markii horeba haddaynu dhinac u wada wadnay maantana aynu cirro dhisno oo hareeraha ka istaagno oo aynaan u kala hadhin oo siyaasi Mustafa waxaad sheegtay in maxay ahayd tole taxaaluf hore jiray taxaalufka ma laga yaabaa in madaxweyne biixi mar labaad isna qorshihiisa ku guureysto maadaama uu shaaciye hankiisa musharaxnimo waxaan u malaynayaa taxaalufkaasi inuu burburay dhinaca muusuu ka burbura laakiin ka taariikhiyan wuu jirayaa oo marba dalka wixii dan u ah in laysu taxaalufto tacaawanu cala albiri wataqwa wey dalkan wixii xal u ah ee maslaxaddiisu ku jirto ayaa loo taxaalufayaa taasina weeyaan taanu ku ballansannahay waana diyaar iyaguna xaggana waa laga diyaar Cirro si qarannimo ah baa loo dooranayaa maanta si qarannimo ah
ayaa loo dooranayaa. taas waa intaa ta xisbiga waddani ee ku socota weliba murashaxa maxamed cabdilaahi ciro dadku ku heelan yihiin fursaddiina waad haysataa, fursad qaaliyana waad haysataa. shacabkii oo dhammina way ku midaysan yihiin. doorashadan waxaa laga yaabaa inaad cod hesho aanad filayn, horena u dhicin inaad heshaa laga yaabo. laakiin talooyin badan baa ku hor yaalla. tallaabadaad qaadaysaa inay sugnaataa baa loo baahan yahay. wax kastoo la qaadayana waxaa ka tashateen oo waxa ka dhalan doona eegteen xagga dambe maxaa ka dhalan doona inuu noqdo tallaabada la qaadayaa. caadifaddii oo dhan in la baktiyo, in loo jeesto sidii bulshada loo soo kasban lahaa, loo qancin lahaa. markaa qodobkan u socdaa waxa weeye waxaa ku iman doona siyaasiyiinka o dhan ee reerii baanu sidnaa. nin reer sidaa ma jiro, yaan been laguu sheegin. reer walba isaa jilibadaa ku imanaya. reer wariba maanta wuxuu heegan u yahay inuu adiga ku yimaado. ninka doonaya caadifadda dadka soo socda inuu isagu ka faa'iidaysto oo kudhar dadkii anaa ku haya aniga heshiis la gal, dee wuxuu ka cadhaysiinaya raggii hore aad wadatay iyo kuwii ku imanayey ayaa ka cadhaysiinaya. dadkuna iskuma san bannaana. marka haddii ay ku yimaadaan ururo, masalan nimanka ururka ka ah oo kale la sheegaya inuu leeyahay waddani waan heshiis la gelayaa si doorashada madaxtooyada markuu ciro soo baxo wixii ay hesho beelweynta habar jeclaanaha qaadaya, dee waa arrin culus, mana qaadi karo. adiguna haddaad heshiis kaa gasho waxbaad ku waayeysa, waxba ku heli maysa, adigay dhaawac kuu keenaysaa. laakiin waxaa la doonaya inaad adigu bulshada la macaamisho, siyaasigaa laftigiisana aad la macaamisho oo si xikmadaysan aad isagana ula macaamisho. laakiin aanu dadkiiskaga kaa gudbin, adigiyo dadku ay isu furaataan oo aanad saxeexin maanta heshiis dhaawacaya inta kula socota iyo inta kugu soo socota. inta kula socota waxa ka badan inta kugu soo socota. inta kugu soo socotaa ka badan. mustafe waxaad sheegtay in siyaasiyiintu ay ka hor istaagayaan dadka musharax ciro. aad halkan fariin ugu diraysid ama aad la hadlaysay isaga. siday wada ogsoonay siyaasadda Soomaaliya waxay ku dhisantay beelo. siyaasi aan beeshiisu wadanayn maxay ahayd toolay ma garwadi kara baa la siyaasadda. markaa miyaan la odhan karin ururka ka habaad afka kaga dhawaajisay siyaasiga hogaaminaya maxamed xaashi ayay ku daba faylayaan, mise waxaad leedahay dadkana gaar ula macaamil isagana gaar ula xidhiidh? maya, anigu waxaan leeyahay waanu la talinaya ciro. ururka ka ah dee waa urur jira, urur jiro kelmaddiis waa ii dambaysaa, waan ku odhan doonaa. laakiin isagoo siyaasiyiinta gaar ula macaamilaya inuu reer dhan la yidhaahdo urur baa sida ama koox baa sida ama nin baa sida, waa arrinkan ka hadlaya. ma qaadi karo. nin reer sidaana ma jiro, nin reer qaadi karaana ma jiro. isaga maanta ka ahdaa aad soo qaaday haddaan iminka teedaba ku sheego, ururka ka ah maanta wax la gudbo inuu isagu weelkiisa ka shaqeeyo, ururka iyo la soo saara inuu qodobkaa ka shaqeeyo. laakiin hadduu galo siyaasadda kale ee ah saamiga iyo siyaasiyiinta kale ee iyaba damaca leh uu arrimahooda galo, dee iyana way weerarayaan. deedna waxaa dhaawacmaya ururkiisa hadduu dee si caqliyan u xisaabtamayo. laakiin sida xaqiiqada ah marka loo dhaqmayo, isagoo maanta kaa wax la gudboon inay tiraahdo waar urur baan wataa ururkayga igu rida. ururna dee kaana dee habar jeclo qura maaha, waa dee urur ballaanoo cid walba ku jirto. haddii uu dee habar jeclo kaa matelayey dee waa gaar. laakiin waxaan u haystaa urur dee qarankao dhan cod ka doonayayoo 6 gobolba cod ka doonayayoo dee wax laga sugaya. marka heshiiska haddii ku jirto qodob ah saamiga dawladdaannu cid wakiil uga noqonaynaa, taas wey taan ka hadlaya. laakiin tan ururadan iyo heshiiskooda iyo farsamo socodkooda iyo in wax lala gaadho iyo in lala wada hadlo iyo in lala fadhiisto intuba waa ku waajib ciro. oo ururkiina soo jiito, ururadii soo jiito, shacabkiina soo jiito, laakiin aan laga qalindaarin shacabkaa u soo jeedadii. maanta jamaahiirta way ku soo jeedaaye hadduu ku idhaahdo isbaanaan dhigto anigaa ka wakiila, hadhowna dadkii aa iska hor timaadaan waraaqawna judhay bannaanka imanayaan wixii lagu heshiiye. waxba ma qarsoomaan.
waa fartaago habeenkii ninkii fartii gurigiisa ka taagay waa xalibaad far taagtay marka warkuu soo baxaya imankaba taas suuqa ay taallaa imankaba way soo baxda tan laftigeedu imankaba way soo baxda marka taan uga digayaa ciro waa taa kaana waxaan uga digayaa inaanay arrimaha kale farageline ay ku ekaato ururkeeda iyo siday u soo bixi lahayd haddii dee caqli saliimi jira wey mustafe aad baad mahadsan tahay inagoo waraysigeeni kusii guda jirnaa madaxweyne muuse biixi cabdi maalintii dhoweed waxa uu sheegay in xisbiga kulmiya uu yahay xisbiga qarannimada somalilan difaacay isla markaasina kaga habboon labada xisbi mucaarada ee saaxiibadiisa mucaaradka waxaad ka mid ahayd raggii waxaad ka mid ahayd raggii muuse biixi soo saaray wakhtigii kambeynkii 2017 bal sidee arrimahaasi aad kula muuqdaa madaxweyne uu sheegay horta waa runoo raggii berigii hore dee kambeynka u galay baanu hayna dhisay meelo adagna waa noo mar se maalintaa dee muuse nin la sidooha maanta se shacabkii u dhex yaallaa qarankan iyo waxaan oo dhan marka iminka kambeynku bilowdo ayay wax badani soo bixi doonaan markaasaa la ogaan doonaa muuse inuu qaranka u hiiliyey iyo inuu jebiyey markaasay soo bixi wax badanna way soo bixi doonaan laakiin arrimaha noocaasi waa hadallada dambe ee xaaladda kambeyn u dambaysa la isticmaali doono laakiin maanta xiniyihiisu saaran yihi awal rag buu saaraa maanta isagaa isa saaran bal isagu maanta halku isdhigo iyo guushu sheegtay dee bal siduu u dhigaa baynu eegi doonaa statigiska isticmaaleen isagoo siyaasiyiinta gaar ula macaamilaya inuu reer dhan la yidhaahdo urur baa sida ama koox baa sida ama nin baa sida waa arrinkan ka hadlaya ma qaadi karo nin reer sidaana ma jiro nin reer qaadi karaana ma jiro isaga maanta kaahdaa aad soo qaaday haddaan iminka teedaba ku sheego ururka kaah maanta wax la gudbo inuu isagu weelkiisa ka shaqeeyo ururka iyo la soo saara inuu qodobkaa ka shaqeeyo dadku codeeyaan ayaa natiijada la gaadhayaa tii cali guray sheegay baana aniga ii muuqata tii cali guray sheegay statigiskii cali guray baa ii muuqata aniga adigu waxaad ka soo jeedaa deegaan ballaadhan oo muddooyinkii u dambeeyey siyaasadda somalilan saamayn ku lahaa waxaana kala hogaaminaysaan xisbiga waddani iyo kulmiye iyo kaah siyaasaddiinu guud halkay iskugu biyashubaysa horta kursiga madaxweynaha waxaa iskale cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cerhaa iskale dadkuna way heegin diyaarna way ururadaa hadhay ururada nin walba siduu dadka wax ugu sheegtaa bay u taallaa siduu dadka wax u gashado ayay u taallaa marka ay noqoto xisbiga waddani xisbi ahaan dee isba urur buu ku tartamayaa dee wuxuu doonay inuu xisbi noqdo isaga qudhiisa dee rag baa u jooga oo beeshan aan ka soo jeedo ka mid a imanka reerkaan ka mid nahay oo kale dee waa wada waddani waddani bay dee ka tirsan yihiin ka ururka iyo ka xisbigaba isagay siinaya marka nin waliba saamigiisa kulmiya u malayn maayo inuu maanta sid nafle ka soo qaadayo bari u malayn maayo laakiin meesha lagu dagaalamaya lagu tartamaya waa hargeysa iyo maroodi jeex meesha dagaalku ka soconaya ee cidiyaa la iskala baxaya waa maroodi jeex oo maroodi jeexna annagu dee deegaan ahaan waanu degannahay waana joognaa laakiin waxaa dee saamaynta ugu weyn ku lihi waa garxajis iyo awalla dee kursiga waxaan malaynaya inaanay faa'iido badan maanta aanay ku hayno wixii soo maray way garanayaan iyo wixii uu hawl lahaa oo way yaro xantanayaanoo qoladaa walo waa nala caayay iyo waxbaa nala ku yidhi iyo kursigaana le waxaa ninkuna waa la caayeyna ceeb baa kaa raacda annaguba iyadoo saacad muuse nagu miisay oo ilaa dahabshiil la gaadhay yaan lacag la dhigan baanu iyagii dhisnay markaa gobonnimadu kuma jirto waxbaa laygu yidhi iyo hadal baa laygu yidhi gobonnimadu kuma jirto waa arrin ka baxsan dhaqanka reer sheekh isxaaq waa leecaayay oo horaa looga maamo ceeb baa kaa raacda marka deegaanka iyo uu bari soona bari waxaan maya kaah wuxuu ka helayo wuu ka helaya waa urur dee deegaanka ka mid a waddanina waa ka helaya laakiin kursiga madaxweynaha codka madaxweynaha ciraas kale kaa waa loo midaysay
kaas waa cod loo midaysan yahay in ciro maanta kursiga la saaro. inta badan beeshaadu waxay ku halcelceliyaan ama mar kasta ku celceliyaan oo yidhaahdaan lama keeni karo sanduuq maadaama anagu aanu maxay ahayd tolay deegaanada ay ka tirsantay buuqdharkeyn colaada ka jiraan marka fariimaad halkan u diraysaa maxay yihiin niyow dadku way iska hadlaane cid odhan karta sanduuq lama keeni karaa ma jirto oo waxay tusaysaa dee dowladnimadii bay dhaawacba ku tahay qof weel ka hadlay oo odayaasheedii iyo waxgaradka iyagu dee nidaam bay leeyihiinoo ragga dee noo taliya dee waa kuwii hadlayeen nabaddana ka hadlayey iyagaa wixii go-aanana leh guddi baanay beeshu leedahay culus guddidaasaana go-aamisa iyo odayaasha dhaqanka marka qof warbaahin ka hadla habar jeclo uma guddoomiyo umana gooyo kale meel baa layga haystaayoo sanduuq lama dhigi karana waa nin iska hadlay doorashadu way dhacaysaas goob kasta oo habar jecla degan tahayna sanduuq oo la dhigay aad bad mahadsan tahay siyaasi mustafe maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121